dalka doorashadu aadaya waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaaraya boqolkiiba boqol ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirtay in ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa oo ay ku codayso ku kala doorato dadka taas mabda'aas waa arintaas waa naga mabda' ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku raayay ka tanaasulid male dadka Soomaaliyeed mustawa kasta oo joogan meel kasta oo joogan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameeyay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'een wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed waxa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayaga iskale hadduu u fiicnaadana ayaga iskale hadduu ku xumaado هالسجان وقت السي وقت كيس هالسجان هسكب بدل بري هذا هو ناقص نادنا بري هسوع 20 أو سوع وأقول في عن وقبر في عن وكو 20 هذا لكن وحارب يعني ضدك الله خلدن شعبك الصوماليات وحارب أنا وشاغ يعني بين الإيدين شيء يعني بين الإيدين شيء ما دعي كرتو أنت كدعذا إنما جاك طلنا إنما وروالا صوت تلوى شالك وجرا صوت تلوى xukunka xooga lagu raadiyo qoraya lagu raadiyo dhiiga loo daadiyo waa lagu heli waay inaan wada hadalno heshiino markaan gaarnay 135 oday adeer reebel la yiraahdo oo ugaaska cideena suldaanka cideena garaadka cideena malaaqa cideena ayaan dhahnay talada loo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay fiiri maanta markii ka dambeysana sidoo kale maantana sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ku heshiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiyaan horaan u sheegay nin xoog badan dalkan kama tali karo sharci xoog badan ka tali karo doorashadaasna Ilaahay idinkiis waa hirgelinayna wayna hirgelin yaan idinkaga been sheegin oo propaganda idinkaga furin oo cunug yar oo maxaan ku raadaya irsaaqada ka gashay inuu wax xun la sheegay yaanay aadin iska daaya waa soo soconay meeshaan waxaan ku gaarnay dadka Soomaaliyeed rabitaankooda haddana rabitaankooda ayaan ku sii wadayna taas meeshaas inaan ku dhaafaan rabaa